Audio Jungle. may soo marin taariikhda kubada cagta ciyaar la mid ah ciyaartan oo kale mana soo mari doonto inay kooxi kaga badiso koox kale natiijada ah 149 gool iyo waxba taas oo noqonaysa guushii iyo guuldaradii ugu weynayd taariikhda kubada cagta waxayna dhacday dhacdadani 31 bishii Oktoobar sanadii 2002 waxayna ka dhacday horyaalka wadanka Madagaskar waxayna dhex martay labada kooxood ee kale ah Adema iyo Stade Olympique Tonimer waxayna awoodeen ciyaartoyda kooxda Adema inay gaadhaan guusha xataa iyagoo aan kubadda taaban waxay si kas ah iskaga dheliyeen ciyaartoyda kooxda Tonimer goolal badan iyagoo oo kaga falcelinaya cabashooyin ah in aanay garsoorayaashu si cadaalad ah u hayn ciyaarahoodii u dambeeyay waxaana u dambeysay ciyaar muhiim ahayd oo ay ciyaareen ka hor inta aanay la ciyaarin kooxda Adema kadibna waxay go'aansadeen inay ka hor yimaadaan arrinkaas waxayna bilaabeen inay kubadda ku laadaan goolahooda oo marka uu garsooruhu siidhiga afuufo oo uu gool xisaabiyaba waxay u degdegayaan inay kubadda ku celiyaan bartamaha garoonka si ay iskaga dhaliyaan goolal kale halka ay fadhiisteen ciyaartoyda kooxda Adema iyagoo ama kaagsan oo indhaha uun kala socda waxa dhacaya waxayna ugu dambeyntii iska dhaliyeen 149 gool 36 ilbiriqsiba waxay iska dhalinayeen hal gool ciyaarta kadib waxaa lagu sameeyay tababarihii shaqo fadhiisin muddo 3 sano ah afar ka mid ah ciyaartoydiina muddo 6 bilood ah waxaana digniin adag loo diiray xubnaha kooxda in aanay mar kale samayn falalkan oo kale waxayna ciyaartani xambaarsan tahay rikoodho waaweyn oo kale ah taariikhda kubadda cagta waa ciyaarta kaliya ee koox dhammaystiran la wada ganaaxay waana ciyaarta ugu badan ee goolal la dhaliyay iyo ciyaarta ugu badan ee kooxii iska dhalisay goolal waana guusha iyo guuldarada ugu weyn taariikhda kubadda cagta waa ciyaarta ugu badan ee uu ciyaartay iska dhaliyo goolal waa ciyaarta ugu badan ee kubadda la isku taabto ama laga soo bilaabo bartamaha garoonka waana ciyaarta ugu badan ee goolhaya laga dhaliyo goolal sidoo kalena waa ciyaarta ugu badan ee uu garsooruhu afuufo siidhiga